Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadli doonaa qaabka looga hortago in user-kaaga laga saaro remembering. Haddaba fadlan haddaan ugu cusub tahay channel-keena, subscribe noo saar si video kasta aan mustaqbalka u soo geliyo aad u heshid. Mahadsanid. Okay, Facebook-gaaga soo furo, kadibna markaad Facebook-gaaga aad soo furtid, saddexdaas alif ee soo yaala ku dhufo. Markaad saddexdaas alif ee soo yaala ku dhufatid, kadib waxaa ka sii doorataa settings markaa ka dooratid kadib waxaad tagtaa personal information and account meesha ay ku qoran tahay. Okay, halkaa markaad tagtid kadib waxaad tagtaa meesha ay ku qoran tahay account and ownership control. Okay, halkaa markaa ku dhufatid labaa kuu soo baxaysa. Mid waa memorization oo meesha remembering la iskaga saarayo, midna waa deactivation-ka. Deactivation-ka waa in muddo inuu kaa maqnaado user-kaaga. Anna waxaan u soconaa waa memorization ku dhufo. Okay, memorization markaad ku dhufatid laba option aa kuu soo baxaysa. Midda koowaad waxaa waaye choose legacy contact. Waxaa laga wadaa dooro qof macnihi aa ku kalsoon tahay oo xasuusahaaga boostiyadaada waxyaalahaaga tirtiri kara oo remembering saari kara akoonkaaga. Kaasna waxaa ka dhigan kartaa user adi aad leedahay, userka hooyada, walaalka, aabaha, any user kasta oo adi qof aad ku kalsoon tahay. Midda labaadna waa automatically shirkadda inay hawada uga saarto user-kaaga ee dhilgareyso markaad dhimatid. Okay, waxaa markaas saa ugu hortagtid user-kaaga in laga saaro remembering, halka waxaad gelisaa ama choose gareysataa qof aad ku kalsoon tahay user-kiisa. User-kaasna waa inaad friends aad tihiin. Okay, markaad ku soo dhufatid kadibna next aad tiraahdid waxaad ku qoraysaa halkaas user-kaas magaciisa. Markaa magaciisa aad ku qortid kadib waxaad dhahaysaa okay baad dhahay. Markaad okay tiraahdid qofkaas message baa halkaa kusoo qormi doona, message-kaas ayaad u diraysaa. Message-kaas markaa u diraysid waxaa ku xusan message-kaas inuu manage gareynayo oo macnihi uu la soconayo boostiyadaadii waxyaalahaagii, sidoo kalena awood u yeelanayo inuu user-kaaga kaa saaro remembering waa taqaanaa in user-kii uu hawada uu ka baxo daqiiqadooyin kadib ama muddo ama saacado marka aad dhimatid, ama waxay noqoto ama week ama bil ama waxayna noqoto haddii aad wax aqoonsi aadan isla markiiba aadan gelin aad leedahay aadan ogeysin shirkadda. Marka haddaba qaabkee iskaga saari kartaa user-kii aad haddana remembering-ka aad saartay? Kaliya wadadii aan soo marnay kadibna remove kaliya dheh.